Waxaa jirtay gabadhan oo aad u qurux badnayd. Waxa ayna dhiganaysay jaamacadda. Qof walina waxa uu isku dheerarinayay inuu gabadhaasi la sheekayso. Xataa inay hal kelmad ka maqlaan afkeeda. Gabadha ceebteedu waxay ahayd qof furfuran. Waxayna ahayd qof bulshaawiyada heer sarana ah. Haddana ma aysan ahayn qof aad u diin leh. Mana aysan xijaaban jirin. Waayo waxay ku naxsanayd quruxda Ilaahay siiyey. Arrintaasi oo ay gaar uga dhigatay muraayad ay ku sidato boorsada markasta. Ruux sac kastana muraayadda ayay la soo bixi jirtay waana isku fiirin jirtay quruxdeeda si ay u aragto. Iyadoo aan dareemaynin dadka hareeraheeda jooga. Gabadhan waxay lahayd 3 gabdhood oo saaxiibo ah. Oo ay 3daba ka qurux badnayd. Laakiin iyaguna way ka diin badnaayeen. Laakiin natiijada ayaa ahayd dhammaantood in la guursaday intii jaamacadda lagu jiray. Dhammaan waxay aqal galeen markii jaamacadda laga baxay. Laakiin gabadhii quruxda badnayd way qalin jabisay oo jaamacaddii ayay ka baxday. Qof kastina waa iskaga tegay. Markay jaamacadda ka baxday waxay isku dayday inay qof walba u dhawaato si ay jacayl ugu hesho midkood. Laakiin qof waafaqa ma aysan helin. Ileen iyada ayaaba xilligii daraasadda qof jeclayda. Qof kastina waxa uu aqoonsaday heerka ay wada noolaayeen labadoodu. Arrinta weyni waxay ahayd in saaxiibkeedii ay aadka isku jeclaayeen ay xiriirka lahaayeen inta iskaga tegay mid xijaaban raacay. Taasi oo aamusnayd. Dhalinyaradana aan badiyaa la macaamiloon jirin. Mar walbana ku koobnayd inteeda oo qura. Qur'aankana waa ay xifdisanayd. Maalin ayaa saaxiibkii waxa uu weydiiyey warniyow maxaad u guursan weyday gabadhaad xiriirka lahaydeen ee quruxda badnayd. Waxa uuna ku jawaabay saaxiibkeed anigu waxaan doonayaa qof noloshana ila wadaaga ubadkana iigu noqda hooyo. Markaan maqanahayna aanan ka warwarin. Weliba waxaan rabaa qof xilliga adag ila qaata intaan la gaarin xilliga wacan. Gabadha aad iiga warramaysaa kaliya madaxa ayaan ku dejin jirnay. Gabadhii quruxda badnayd waa ay murugootay. Markay heshay dhammaan saaxiibadood in la guursaday oo weliba ay ubad dhaleen iyada mooyaane. Muddo markii ay joogtay oo waqtigeeda ku laabatay nafteedana ay dib isu fiirisay si dhab ah waxa ay ku soo toostay iyada oo muraayaddii tuurtay kuna laabatay xijaabkii Ilaahay daacadiisa. Markaas kadib ayaa Ilaahay nin siiyey. Laakiin arrintaasi waxay dhacday markii muddo badan gabdhihii saaxiibadeeda ahaa ka habsaantay. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. Mahadsanid.